إنا لله وإنا إليه راجعون وجدين ميدتك halkan waxa ka dhacay shil laga yaabo saxaabta qaaliga أكثر وين ولا يقال أولي بقى نجعل إنا مرة في على سلكن يا كلام ولا مليش هاتي أبرام صمر ولا يقال عاوى مليش هاتي ما والله بلا kulanti wacan daawadayaasha ku xiran janalkan Shabeellaha TV ku soo dhawaada mar kale iyo muuqaal cusub muuqaalkan waxaan kaga hadli doonaa war degdeg ah oo hadda naga soo gaaray magaalada Nairobi ayaa sheegaya in dhalinyaro Soomaaliyeed ay shil gaari ku galeen halkaas dhalinyaradan shilka galay waxa ay ahaayeen kuwa caan ka ah baraha bulshada sida TikTok iyo YouTube-ka kuwaasoo saakay socdaal dalxiis kaga baxay Nairobi shilka ayaa yimid kadib markii ay isku dhaceen gaari ay saarnaayeen dhalinyaradan iyo gaari kale waxaa la xaqiijiyay in shilkan ay ku dhimatay Allaha u naxariistay gabar caan ka ahayd barta YouTube-ka waxaana lagu magacaabi jiray Munish Maarin waxa ayna kamid ahayd team Somali Reacted waxayna ahayd gabar qaabjilinkeeda aad u wanaagsan yahay sidoo kale wararka ayaa inta ku daraya in halkaas uu ku dhintay wiil lagu magacaabo Sakariya Cabdi Warsame shilkan ayaa geystay khasaare aad u badan waxa jirto dhimasho inta ka badan iyo waliba dhaawac haddii aynu nahay bahda Shabeellaha TV waxaan halkan tacsi ugu diraynaa dhammaan dadkii halkaas ku geeriyooday waxaana leenahay Allaha u naxariisto qabrigana Allaha u waasiciyo sidoo kale dadkii ku dhaawacmay ayagana waxaan leenahay Allahna ugu baryeena in uu Ilaahay u boogadhayo fadlan daawade aan u wada duceyno walaasheen Munish Maarin iyo asxaabtii qaaliga ahayd ee halkaas ku dhimatay oo ku maasanta daawashada daawada muuqaalkan daawade hadii ay tahay booqashadaadii ugu horeysay ee aad ku timaado channelkan waxaan si xushmad leh kaaga codsanayaa inaad channelka subscribe saarto furtana gambalelkaasi ay ku soo garan barnaamijyada warbixinada iyo wararka degdega ah ee aan halkan ku soo baahiyo mahadsanid saxaabta qaaliga أكثر وين ولا يقال أولي بقى نجعل إنا مرة في على سلكن يا كلام ولا مليش هاتي أبرام صمر ولا يقال عاوى مليش هاتي ما والله بلا حوار مركز واحد جلها صغيرة وقلها صغيرة أنا أقول في وصلك هنا إن شاء الله